kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho haweenka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa waxay uga hadleen xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dalka iyo xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho iyagoo sidoo kale sheegay dhibaatooyinka laga dhaxli karo mar kale dalka inuu ka dhaco dagaal sokeeye. Qaar ka mid ah haweenka oo ka hadlay kulanka ayaa waxay baaq u direen dhinacyada isku haya siyaasadda iyo qaybaha kale ee bulshada. waxaan meeshan waxay tahay rag Soomaaliyeed oo maanta xamar joogo waxaan inaysan ku fikirnaan rabaa aysan ku seexan in qor la soo qaato ama askar la aruursado ama colaad la bulbaaliyo doorasho dhici weysa daraadeed taas raali kama nahay gabar kasta oo joogta tan caanaha gadayso maanta caanaha beesan gaday ma helayso ilmeed waxay ku biisho wiilkeena mootada wata ma helay maanta haddii dagaal dhaco ama roobka jidka xiro oo shaqaysan waayo wuxuu ilmihiisa ma helay anagu madama kala naqaan aan qeybna manhin laakiin qof kasta oo dhulka kan dhibaato ku wada ilaahay waxaan ka baryaynaa jidada inuu marsiiyo anagu dhibaato ma rabno qax ma rabno shida ma rabno ummadda danyarta ee cudurrada iyo dhibaatadu ay daalsadeen ninkii maanta ila xabadan la dhacayaa ilaahu adu wada qafurna waxa ka qarsoonay ee xabada uu sheegay asaga u aadaysa meel kale aadimay laakiin ahad ma waxaan sheegayno waa qof kasta oo dhibaato wada dalka Soomaaliya alla wixii dhibaato ku wada ilaahay ka magan gala waa in dalka Soomaaliya maanta isku naxariista Soomaaliya waxa soo martay iyo waxa aan jirtay xusuusto ninka dagaalka u ordaayo oo iimaanka Ilaahay ku galiyo midka abaabulayo oo iimaanka Ilaahay ku galiyo qof walba 2 mitir iyo barba la dhigaya ka filcad baa laga qaadaya wadanka Ilaahay ka xishooda dadka soo kabanaya adduunyada hooyooyinka ka ooyinina caruurta agoontaynina caruurta iskoolada dhiganaysa iskoolka ka joojinina colaadana waa soo aragnay ma ahan waxa darna loo sheegayo mar baa maxay ahayd dib badan ka soo marnay waxaan kaloo dib badan ka soo marnay sidaan ugu soo noqon lahayn mar kale qaranka nabi oo dhisan sidaan ku soo dhishan lahayn intaan haweena iyo in kaloo badan oo naga maqan iyo kuwa god u galay waxaan ku dadaalay inay qarannimadooda soo noqoto alxamdulillaah rabbil caalamiin waa noo soo noqotay waxaan leenahay dagaal dhibaatadiisa ka soo aragnay maandooyo annaga ku soo korinay dagaal ha buunbuurinina meesha dagaal ka buunbuurin lahayd nabadda ka buunbuurin marka walaalayaalow wax idin ma sheegay aniga wax waa ka warqabtiin waa ogtihiin caruurtiin gurihiini dib kala meel kale naga heesto intaan halkaan hadda ka baxno waa tala sahar afgoyn raaci jirnay iyadoo ugaaskeeda soo dhisayso ma aadi karna hadda caashi maxaa ilaa dayr meelahaas hadda waa tegi karnaa lagsa ka shishe lama tegi karo marka annaga cariirigaas ku jirno hadda in cariiri kale koobana la galsho oo xamarna ku soo cariiri dhibkeeda leedahay marka ilaahay tawfiiqda waa waafajiyay halkaas nooga sii socoto dad walaalaha isu yimidaan nahay faataxadana waa maranaynaa waana duceysanaynaa ilaahayna waa naga aqbalayaa nimankaana calooshooda burcad ilaahay isu mariyo Cumar Maxamed Hirshabeelle TV magaalada Muqdisho.